dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu leedahay go'aanka dowladaha ka mid noqonaya howlgalka cusub ee Soomaaliya kaas oo loo bedelayo ama lagu bedelayo howlgalkii ATMIS ee Midowga Afrika. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisu leedahay mas'uuliyadda cidda ku soo biiri doonta iyo dalalka ka mid noqonaya howlgalkaas cusub. مسؤولين إثيوبيا أو مروا أي سيدي كديان عيدا مدودان هل كان جوجا إني قصب هي صومالي إني جوجان أي قصب تحي أن أركي إني معلومها تصريحات كاس يوركاس يصوب حيان وركاس ورنتي عن مناسب حين وركاس ورنتي ده وحي لك الجوجي سيئة كينية وركاس وأكانية ciidan dal qabsaday oo kale inuu ciidankoodu yahay oo ciidan sharci ku jooga dalka Soomaaliya oo ka tirsan ciidankan ATMIS oo heshiis caalami ah ku jooga heshiiskaasna waqti leeyahay sidii ciidamadaas ciidamo aan hayn oo kale in mas'uuliyintooda ay u dhaqmayaan dawladda Soomaaliyana waxay go'aanka iyada iska leh ciidanka ATMIS AU som la yiraahdo ATMIS bedeli doona bisha Janaayo 2025 go'aanka dawladaha ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya iska leh dawladda dibadda iyagu qasab uga dhigi karaan dawladda Soomaaliya sida hadda maaragtay waa sharcigu yahay ama hadda qaraarkii AU-da ay soo saartay ee soo bishan hadda gudaheeda la gudbiyay UN Security Council-kuna uu maalmo ka hor uu ansixiyay in dawladda martigelinaysa ciidamada ay tahay dawladda qaraarka iska leh iyadoo la tashanaysa UN-ka iyo dawlad alaaliya dawladdii ka mid noqonaysa ciidamadeedu ay ka noqonayaan missionkaasi marka runtii cidna kuma qasbi karto dawladda Soomaaliya kaas waxa uu wasiir Fiqi hadaba iyo xaq u leh go'aanka marka Midowga Afrika dal u dirayo ciidamo nabad ilaalin ah ma dalkaas mise Midowga Afrika su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiinay Axmed Kawoole oo falanqeeya arrimaha ammaanka oo u warramay wariye Maxamed Baashi midowga Afrika ama ATMIS la yareeyo joogitaankooda Soomaaliya 2024 December oo la dheereeyay hadda 2025 January waxa bedeli doona ciidamada howlgal oo nabad ilaalin marka ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya waxay codsanaysaa in Ethiopia ay qayb ka noqon sabab la xiriira khilaafka u dhaxeeya iyo xadgudubka badda ama Red Sea siyaas daraadeedna waxay muuqataa in ay Ethiopia way dhici kartaa rabitaan waa ku jiri karaa laakiin xad qarameedka UN-ka marka la fiiriyo iyo African Union marka la fiiriyo labaduba xaq uma ay lahan in ay soo joogaan African Union waxay ku qasbanaan doonaan in ay ciidamada midowga Afrikaan iyo Ethiopia ka saaraan labada dal khilaafkoodana qaabkii loo xalin lahaa laga shaqeeyo yaa xaq u leh inay go'aan ka gaaraan cidda ka mid noqonaysa howlgal ciidan oo nabad ilaalina oo loo dirayo dal yaa xaq u leh inay go'aan ka gaaraan ma dalka ciidamada la geynayo mise midowga Afrika sida guud midowga Afrika waa regional body waayo wuxuu hoos tagaa qarameedka UN-ka oo hoos tagaa runtii wadamada markii la geynayo ciidamada nabad ilaalina waxaa la raacaa principle of UN la raacaa taasoo ah in wadanka host countries-ka consent loo baahan yahay in uu heshiis lagu yahay markii missionka la magacaabo ka bacdi wadanka la geynayo ciidamadu xaq waxay u leeyihiin inay go'aan ka gaaraan ciidamada la geynayo selection ay sameeyaan sidaas daraadeed Soomaaliya waxay ku leedahay go'aan ciidamada la geynayo oo ay dalkooda nabad ilaalinta ka sameynaya waa inay Soomaaliya ku raacdaan marka xaq Soomaaliya waxay u leedahay maadaama historical ay taariikh ka dhaxayso Soomaaliya iyo Ethiopia neutrality-gana ay sax u ahayn marka la fiiriyo marka waxay qasab ah in ay midowga Afrika oo kala doodo Soomaaliya haddii la diido meeshaas oo Ethiopia ay ku adkaysato inay sii joogayso Soomaaliya iyadoo rabitaanka Soomaaliya ku joogin waxay runtii calaamad su'aal gelinaysaa howlgalka guud ee midowga Afrika marka xaq uma laha Ethiopia in ay si awood ah ay ku joogto Soomaaliya iyadoo sheeganaysa in African Union ka tirsan tahay marka taas sharciyan UN-kana ma waafaqsana regional body-gana ma waafaqsana waana su'aal runtii ka dhex furmi doonta midowga Afrika iyo UN-ka iyo missionka oo taageero ka hela maaragtay UN-ka
marka haddii etoobiya ay ku adkaysato in ciidamadeedu ay soomaaliya joogayaan maxaa ka dhalan kara arrintaas maxaase saameyna oo gobolka oo dhan ay keeni karaysaa etoobiya ma diidi karto etoobiya haddii ay diiddo waxaa meesha imaanaya inay gacmaha la soo galaan midowda africa oo ay un-ku la soo galaan taasoo keenaysa in etoobiya ay si fluentary ah ay ugala baxdo ciidamadeeda dalka ay ugala baxdo sababtaa waxay caqabad ku keenaysaa yacni waxay caqabad ku keenaysaa howlgalkii midowda africa ee soomaaliya caqabad ku keenaysaa sharci jiritaanka legitimacyga oo sharci ahaanta midowda africa ku keenaysaa marka midowda africa waxay ku qasban yihiin in ay laba waddo qaadaan waddo ah inay xal u helaan oo soomaaliya arrinteeda iyo etoobiya waxay isku haystaan inay xalliyaan iyo in ciidamada midowda africa laga saaray etoobiya haddii maadaama african union ay ku jiraanna loo raro meel kaleeto oo aan ahayn soomaaliya laakiin soomaaliya oo diidan suurtagal ma aha marnaba in ay kasii mid noqdaan midowda africa qaab kale way ku tegi karaan qaabkay ku tegi karaanna waxay tahay qaab awood sheegasho ah oo dalka sovereigntigiisa ku xadgudbaan laakiin ka mid ahaanshaha midowda africa suurtagal uma noqon doono etoobiya labada dowladood ee soomaaliya iyo etoobiya waxaan la soconnaa in wareeg labaad oo wada hadallaa uu ku soo dhammaaday dalka turkiga oo wax natiijaa laga gaarin arrimaha hadda labada wasaare arrimo dibadeed iyo madaxda sarsare ee labada dal ay isweydaarsanayaan warbaahinta marka la eego ma kula tahay inay uga sii darayaan xiisadda labada dal ka dhex oogan way sii kordhinaysaa sababtoo ah etoobiya waxay ka tirsantahay ciidamada midowda africa deegaanadii soomaaliya joogaan marka waxay ku khasbanaanayaan in ay soomaaliya haddii aysan heshiis gaarin etoobiya iyo soomaaliya ay codsato inay xuduudda dalka ka saaraan ciidamada ayagoo maaragtay la kaashanaya un-ka iyo african union iyo saaxiibada caalamiga ayoo la kaashanayaba in ay etoobiya ka baxdo xuduudaha marka mar haddii etoobiya ay xuduudihii ka baxdana micnaheedu waxay lamidtaha dalka waa sii kala fogeynaya khilaafkan waa sii dheeraynaya aada u maatay kaasi waxa uu axmed kaboole u warramayey weriye maxamed baashi khaliif haatan ah afrikada bari hadda aad ku sugan tahay waa 5tii iyo barhkii oola 5 qabanay magaalada Hargeysa tartankii u horeeyay ee dabaasha ah oo la yiraahdo freestyle swimming oo ah dabaasha furan taas oo lagu qabtay barkada weyn ama swimming poolka Batalaale ee magaalada Hargeysa ku taala warbixintaasi way noo soo socotaa iyadoo faahfaahsan ayaanad ku maqli doontaan barnaamijka balse marka hore aynu aadno sheekada ku aadan diamondka labaad ee ugu weynaa ee abid la helo oo laga helay dhul Afrika ku yaala hadaba diamondkan iyo dhulka laga helay iyo waxa uu yahayba waa kan maxamed baashi khaliif wala fadhi maxamed bal diamondkan weyn ee Afrika laga helay muxuu yahay cabdiraxmaan oo meel kale ka doonin waa qaarada Afrika dal ku yaala ayaa diamondkan laga helay markaasna waxa maskaxdaada ku soo dhici karaya malaha dhiishii fakhriga Afrika turtay ay Afrika turtay laakiin xaaladdu sidaa ma aha kani waa kii labaad ee ugu weynaa tan iyo markii diamondka la helay kii koowaad oo aad u weynaa marka la tilmaamo wadanka Botswana ayaa laga helay meel macdanta laga qodo oo ku taala dalkaasi diamondkan ayaa laga helay halka macdanta caanka ah laga qodo ee deegaanka la yiraahdo Karowe taasoo ilaa 500 oo kiiloomitir waqooyiga kaga beegan caasimadda dalkaasi dowladda Botswana waxay sheegtay inuu ahaa diamondkii labaad ee ugu weynaa abid ee laga helay dalkan koonfurta Afrika ku yaala kii ugu weynaa waxa la helay Cabdiraxmaan oo diamondkan kii ka horeeyay marka kii koobaad isla dalka ma laga helay maya dalku aan sidaas uga fogeyn ayaa laga helay sanadkii 2019 waa dalka koonfur Afrika ayaa laga helay wadankaas marka Botswana hadda waxa ay sheegaysaa in diamondkan uu yahay midkii labaad ee ugu weynaa adduunka wuxuuna 120 ka yahay wax soo saarka adduunka marka la fiiriyo macdanta iyo diamondka ay ka tahay Botswana adduunka marka la fiiriyo wax soo saarka macdanta marka diamondkan waxa soo saartay ama waxa lagu soo saaray hanaanka loo yaqaan Lucara oo ah hanaan lagu soo dhirindhiriyo ama lagu soo saaro diamondta qaabka loo soo saaro waxaan ku faraxsanahay wax soo saaridda diamondkan aan caadiga ahayn culayskiisu uu yahay 2492 karat ayaa lagu yiri war ka soo baxay shirkadda soo saartay oo asalkeeda laga leeyahay dalka Canada marka shirkaddu wax faahfaahin kama bixin tayada diamondkan ama qiimihiisa
taas ayaa ahayd malahatan ugu weyn oo la dherig taagayo laakiin shirkadu ma aysan sheegin cidda la soo baxdayba waa shirkadda goobta ay ka soo baxdo shirkad Canadianaba Canada laga leeyahay Lucara ayaa boqolkiiba 100 leh goobta macdanta laga qodo ee ku taala Crowe oo dalka Botswana ku taala dowladda Botswana ayaa sidoo kale soo jeedisay sharciga shirkadaha ka doonaya marka ay helaan sidaan oo kale diamond oo kale marka Cabdiraxmaan Botswana waxay ku tilmaamtay wax aad iyo aad u muhiim ah diamond ay heleen marka bal maxaa ku gaara diamond kan ay heleen diamondka buluuga ah dabcan dikhda ah dhalaalkiisa aad u qurux badan marka adduunka la fiiriyo diamondada la soo saaro inta badan ka soka waxa waa shayga ugu adag ee qabow ugu hooseeya adkeysan karaya marka la eego wuxuu gaar leeyahay gudbinta iftiinka waxa kale uu ka mid yahay maadooyinka farakutiriska ee korontada korontada xiriir taban la leh marka la fiiriyo marka diamondkan buluuga dabcan diamondada ka midka ah waa mid ka mid ah kuwa adduunka dhimanada qaatay guryahana lagu qurxiyo dadkuna dabcan ay dhigtaan guryaha aad u mahadsan maxamed baashe khaliif buu ahaa oo xogta diamondkii ugu weyn Afrika laga helay ana raahda kii labaad in la socodsiinayay dhageystayaal haatana aynu aadno dhaka iyo Hargeysa waxaa la soo warinayaa in goob lagu dabaal barto ama ana raahda lagu dabaalnayo magaalada Hargeysa waxaa ka bilaabatay ama ka bilowday tartanka dabaasha ma aha goob waa tartankii dabaashaba oo kii horeeyay ee noociisa lagu qabto Soomaaliland tartankan oo ay ka qayb galeen 12 dhalinyaro ah oo tababaro dhinaca dabaasha qaatay ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland sheegtay in tartankani uu yahay mid qayb ka tartamo cusub oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo sibil wadaha iyo waxyaalaha la halmaalay uga mashquulaan wariye Salmaan Saxo ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray tartankan dhinaca dabaasha ah oo kii u horeeyay noociisa ah ee ka dhaca Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa tartankan oo lagu qabtay xarunta dabaasha loogu talagalay lagu magacaabo Batalaale oo ku taala dhinaca waqooyi ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay 12 tartame oo dhinaca dabaasha ku tartamayay kuwaas oo ka tirsanaa kooxaha heerka koowaad ee dabaasha ee magaalada Hargeysa waxaana dhalinyaradan tartamaysay ay galeen 4 wareeg oo markiiba 3 ay galayeen goobta lagu dabaalanayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Yaasiin Caydiid ayaa BBC-da uga warramay tartankan ku qabanay magaalada Hargeysa tartankii u horeeyay ee dabaasha ah oo la yiraahdo freestyle swimming oo ah dabaasha furan taas oo lagu qabtay barkada weyn ama swimming poolka Batalaale ee magaalada Hargeysa ku taala taas oo dhererkeedu yahay 25 mitir ballaceeduna yahay 10 mitir waxa ka qayb galay 12 orodyahan waa markii ugu horeysay waxaan uga jeednaa in aanu ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee ay dhalinyarada Soomaaliland u leedahay hibada in ay helaan waxaana laga maalgeliyay miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maadaama ay markii u horeysay ee tartan dhinaca dabaasha lagu qabtay Soomaaliland waa maxay ujeedada laga leeyahay tartankan waxaan su'aashan weydiinay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha waxaanu yiri isagoo arintaas sharaxaya wallahi runtii waxa faa'iido ku jira Soomaaliland waxay leedahay bad dheer oo u baahan dadkeedu in ay dabaasha ay bartaan oo aanu dhiiri gelinayno waxa kale oo ay ka dhigan tahay in ay ciyaartani ka mid tahay ciyaaraha dunida ugu qiimaha badan xagga caafimaadna wax badan ka geysan kara in qofku caafimaadkiisa uu ku ilaashado ama meelaha exercise-yada ugu wanaagsan ay ka mid tahay waxaanu doonaynaa inaan tartan weyn ku qabanno magaalada Berbera oo ay ka soo qayb galaan xeebyahanada oo dhami ama dadka xeebaha jooga gudoomiyaha xiriirka dabaasha ee Soomaaliland Cabdalla Cali Ismaaciil ayaa isaguna waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaabkii ay tartamayaashan 12 ka koobnaa ay u kala guuleysteen 4 group oo min 3 sheer ah ayaa galay markii koobaad oo 3 jeerba qof ka soo baxayay saasaan uu soo kala xulnay kaanta koobaad waxa galay Cabdinaasir Ibrahim Cumar oo 36.32 second-kiisu ahaa Cabdifataax oo kaanta labaad galay Cabdifataax Maxamed Cusmaan oo 36 plus 53 isna galay kaanta second-kiisu ahaa kaanta saddexaad waxa galay Aamin Khadar Yuusuf 42 iyo 50 marka saddexdii guuleystayaal guuleystaha koowaad ee tartanka dhinaca dabaasha oo ka hadlayay guusha uu tartanka ka gaadhay ayaa waxa isagoo BBC-da u warramaya uu yidhi anigoo Cabdinaasir Ibrahim oo ah guuleystihii maanta ku guuleystay tartankii lagu qabanayay Batalaale oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarta aad iyo aadna maanta shucuurteedu lama soo koobi karo qaar ka mid ah tartamayaashii wareegyada hore ku hadhay ayaa iyaguna waxa ay ka warrameen dareenkooda waxaana yidhaahdeen magacaygu Aamin Axad Qaadir waxaan ku jiray tartanka dabaasha wali tartanka dabaasha noocaas ma qaban sanadkii ugu horeysay wareegga ka qasbay wareegga kale wadan ku hadhay dawantina sulay nasiibkayga aan qaatay waxaan rajaynayaa tartamo kale fiican in loo qabo doono أنا سويت أنا بيان لما قصن يبدأ لنا قصن برا
marka magacayga aymi khaysi baa dhahaa inaan farxadeena ma soo koobi karo mahadana ilaahay u sugnaatay laakiin tartan kale waan sugnaa laakiin diyaar banay walaal magacaygu waa cabdisamed maxamed faarax buux weeye tartanadan sidan oo kale in la qabto aad bay wanaagsan yihiin dhalinyarta iyo hadduu alaba ku roon inay hobbi u sameeyaanoo lala tartamo caalamka amba ciidamadu dabaasha aadka ay u bartaanna aad wax wanaagsan weeyaan soo dhaweynaynaa magaalada Hargeysa ayaa dhawaanahan waxaa lagu qabanayay tartamo kala duwan oo cusub oo noocooda hore Hargeysa looga qaban tartamadan ayaa waxaa ka mid ahaa tartankii feerka tartanka leebka iyo qaansada iyo waliba tartanka baaskiiladaha